ninka halkan ka muuqda waxa uu milyaneer jeebabkiisa iyo koonadiisa ay ku jiraan malaayiin dollar hase ahaatee gabi ahaan bahantidiisa waa uu ka tanaasulay waan u qaybiyay ilaa jeebkiisa ay ku soo hareen kaliya $100 ninka kan ahi waxa uu sameeyay challenge isagoo dunida doonaya inuu cadeeyo in qofka milyaneerka ama hantiilaha ahi haddii lacagtu ka baxdo haddana si yar oo fudud uu ku noqon karayo milyaneer sababtuna waxa weeyaan aqliyada iyo mindsetkiisa oo hab fikirka milyaneerka iyo qofka hantiilaha la mid ma aha hab fikirka qofka saboolka ah oo in yar gar hal qowlaal fadlan haddaad ku cusub tagan halka ku soo bir si muuqaaladan tayada leh graafkaaga aqooneed iyo garadkaagana kobcinaya aad si bilaash ugu daawdo kaliya subscribe taabo gamalkana furo si uu soo gaaro muuqaal waliba markaan soo geliyaa videoga kana ahna like garaa si dadka ugu badan uu gaaro inta baad aad samaysay sida muuqaalka ninka kan ahi challenge-gii uu sameeyay waxa uu ahaa inuu $100 ugu bedelo $1 milyan kaliya 9 cisho gudahood war maxaa tiri 9 cisho gudahood does is it shows people that no you don't have to have a big bundle of cash or daddy warbucks behind you that you can do challenge-ga waliba sidoo uu fuliyo gabi ahaanba waxa uu ka tagay magaalada uu ku noolaa si aanay dadku u oran wajigiisa iyo waxa weeyaan muuqiisa magaciisa oo hore u samaystay ayaaba ka caawiyay inuu gaaro waxa weeyaan recordka iyo lacagta ugu tala galay inuu muddada yar ee kooban ee 3 bilood ah inuu ku sameeyo sida daradeed si aanay taas u dhicin gabi ahaanba waxa uu isaga tagay magaaladiisa uu ku noolaa waxaanu tagay magaalo kale oo aan laga garanayn isagoo kaliya tan jeebkiisa ay ku jirto $100 ee uu doonay inuu challenge-ga isaga ah ku bilaabo ninkii odayga magaaladiisa soo caga dhigay qorshihiisuna waxa uu ahaa inuu wareego wadooyinka isla markaana raadiyo waxyaabaha la isticmaalay ay ku daadsan wadooyinka hareerahooda iyo sidoo kale meelaha qashin qubiyada ah ee dib loo farsamayn karayo waxa uu isla markiiba la soo haaday taayir waxaanu isiri waxaad ka iibsaa qolooyinka waxa weeyaan waxyaabaha la isticmaalay dib u warshadeeya hase ahaatee waa ku fashilmay waxa uu haddana u baadho shaqo kale ah inuu balmuruqmaal noqdo isagoo guryaha dadka u nadiifin jiray shaqadii inuu guryaha ka shaqeeyo ahayd baa gudan galay isagoo runtii ay shaqooyinka ka soo geli jireen dakhli aad u yar taasoo ku kaliftay xataa inaanu guri kariisan karin ee uu seexda gaadhi yar oo uu lahaa gudihiisa maalintiina uu cuno 3 waqti hal waqti oo kaliya taa isu geyna shaqooyinku qabto isagoo Mareykanka ku nool waxay ahaayeen kaliya $140 sidoo kale marka loo eego challenge-gii hadafkiisa ah inuu $1 milyan 9 cisho ku sameeyo $140 wax allaale waxay ka tarisay mitireen waa sidii badla geliya bad biyamii ka soo qaaday الله إله مايا أنت تاساي كمي كلفين هنا وسديبا أصاها توحوا هاتشانس قاعد رادين يفرصها كلها رئيسا دون ينين وكفاية يستو تشانس والبا ما فرصة والبا وهركين دخل يلا عاجي كسو جليسو سيد رادين وحما قال هذا تنا وتجي كسو وجهنا وقت عيدين أو دتكو أي دبل دقيقين حضر فرصة كسو فوضى لسلوق فايد استلا عاجي هراي ورصديبا وصوص تعقب يقدر لوجا بهاي هاي عيدن أما بحفلة كسو عدن مقالة تنا هي وكنولي هاي تركيبان كيبي عقب كي alaabti lacag xoogayina waa ka soo gashay hase ahaatee ninkii odayga ha waxaan qorshahaba ku darsan baa ku soo diriyay oo ah inuu isagii bukooday lacagtii uu haystayda 80% kamida waxa uu ku bixiyay isbitaalka iyo dawooyinkii uu qaatay 20% waxa qasab noqotay maadaama uu bukay inuu guri iyo hooy uu galo ku kareysto taasi oo ka dhigtay inaan jeebkiisa haba yaraatay wax lacag ku soo hadheen markii waxaan uu kii ka bogsaday ayaa shaqadii dib u bilaabay isagoo maalin laamiyada magaalada Mayreysanaya ayaba waxa ka helay meel lagu ururiyay taayiro gaboobay taayiradii baa uu soo qaaday waxaanu ka iibiyay shirkadahan sameeya dib u cusboonaysiinta alaabihii mustacmalka ah ee hore isagoo taayiradii ku iibiyay dhaqaaladan $1,500 taasoo ka dhigtay inuu hadda haysto raasamaal waxa uu uga gudbay taayiradii uu iibinayay inuu haddana u gudbo dhanka iyo gawaadhida gaadhi baa uu soo gatay qiimihiisu $700 oo ah gaadhi la isticmaalay oo yuusid ah kadibna gaadhigii baa waxa weeyaan intuu dib u yara farsameeyay soo meeray waxa weeyaan wixii ka dhinaa soo buuxiyay ayuu dib u siiyay lacag dhan $7,500 lacagta iyada ah markay soo gashay shaqada halkii buu ka sii waday ilaa maalin 73aad waxa uu qabsaday 9 cisho maalin 73aad markii la mariyay waxa jeebkiisa ku jiray $80,000 $80,000 waa lacag wanaagsan hase ahaatee recordkii waxa weeyaan challenge-giisu waxa uu ahaa in 9 cisho uu ku sameeyo lacag dhan $1 milyan imkan waxa ka dhigan tahay 8%
8 buu lacagtii ugu talagalay inuu hayo hadda jeebkiisa ku jirta dabeetana ninkii odayga ahaa waxa weeyaan maalin baa u fadhiistay waa isla showray waxa uu yidhi si maaha hawshii arrinkaa doonaysayna kuma fulin kari sida maxaa xala waxa uu yidhi bal aan magaalada wax weeyaan indhaindheeyo aan eego mushkilad iyo dhib jirta amaba adeeg magaalada u baahan tahay oo aanay cidi hadahay kadibna lacagtan aan haystaa waa lacag xoogaaye ku furo markii uu indhaindheeyay magaalada waxa uu ogaaday inay u baahan tahay magaaladu hotel amaba restaurant yacni meel laga cunteeyo oo hilibka lagu dubo hilibka waxa weeyaan waa la duba ama waa la shiilaa ama waa la kariyaa meel hilibka lagu dubo buu yidhi aan farsameeyo kadibna waxa isugu yeedhay niman waxa weeyaan cunto kariyaala koogeen ah cuntadana si fiican u yaqaan $80,000 uu haystayna mashruuca isaga ah ku kharash garay hotelka laga cuntay uu furayna markii 90kii cisho dhamaadeen waxa lagu qiimeeyay lacag dhan $750,000 muu gaadhin hadafkii ama challenge uu sameeyay ahaa $1 milyan asaahate waxa uu ku bayaamiyay kuna cadeeyay in aqliyada iyo mindsetka qofka maal qabeenka ay tahay taw ku sameeyo xoolaha iyo lacagta waa kan Cabdiraxmaan ibn Awf waa واحد من العشرة المبشرين بالجنة وصحابي كمية صحابتي طبعاً النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكم جود كيس مريا وجود بشارين يتشنق لي دونان عبد الرحمن بن عوف الله كره له هذا مركب كسو يشرودي مجال مكة ويميت مجال المدينة سوق مهاجر فوق صحابي أنصاري هاي الولالي وحوها سعد بن الربيع رضي الله عنه وحوكول عبد الرحمن بن عوف ولا الكيو يعني إسلام لماذا ولا ليسي أنكو سيو حولها هيك كلا بروبان صاحت عبد الرحمن عفوا وكديدي وحان كوري ولا waxaad tustaa suuqa Cabdiraxmaan ibn Awf suuqii buu tagay intaanu magaalada waxa weeyaan Madiina iman magaalada Makka waxa uu kamid ah tujaarta ugu waaweyn ee maal qabeenka markii uu dhex istaagay suuqi waxa uu bilaabay ganacsi waxaanu ka bilaabay caano iyo burcad inuu iibiyo hasaahata Cabdiraxmaan ibn Awf markii uu dhintay waxa uu ka tagay hanti gaaraysa 3,200,000 oo diinaar oo dahab Cabdiraxmaan ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu waxa uu lahaa aqliyad iyo mindsetkii qofka maal qabeenka ah taasi oo ku sameeyay waxa soo hantiyay marka fadliga iyo galnada ee bilaga yimaado waxaanu iska diiday xoolihii bilaashka ahaa ee uu si Sacad ibn Rabi isagoo kaliya wuxuu ka codsadayna ay ahaayeen dullooni ila suuqa tilmaam aniga shaqaysanaya xoogsanaya meel adduunna la soo baxay aqliyadiisa fikirkiisuna waxa uu ahaa hab fikirkii qofka maal qabeenka ah haday noqoto tacabka dadaalka waxa weeyaan ka faa'iideysashada fursadaha nolosha ku soo maraya intaba waxaana ogaataa mar iyo laba iyo saddex jeerna kugu celinaya waxa ugu weyn ama farqiga ugu weyn ee u dhaxeeya qofka maal qabeenka ah iyo qofka saboolka ah waxa weeyaan hab fikirkooda oo waxa laga yaabaa labadiina qof ay daawanaya in midkiina uu aaminsan yahay in maal qabeen aan lagu noqon karin dalkan intuu joogo ee kaliya waxa uu hanqal taagaya ay tahay inuu dhoofo dibadda qabto Yurub iyo Mareykan aado markaas xaaladiisa dhaqaale wax iska bedeli karaya halka ka kalena uu aaminsan yahay idin kamid ah in dalkiisa isagoo jooga uu noqon karayo waxa weeyaan maal qabeen taajira xoolo iyo lacag badan tabcaday oo shaqaystay ka hore inuu sheegnay xaaji doofka ah waxa laga yaabaa inta uu dalka joogo ee aanu dhoofin inuu noqdo ma shaqayste haddii uu shaqaystana uu ka shaqaysto meel yar quutal daruurigiisa uu kala soo baxo wax dhaafsiisana ahaatee ana hankiisa himiladiisa aanay ku jirin haba yaraatee maalinka maanta haddii intan inay maal qabeenka ah lacagaha haysata waxa weyn to lacagooda laga soo wada qaado dadka fuqarada iyo masaakiinta loo qaybiyo kadibna fuqarada iyo masaakiinta ay taajiraan bari ka maalin hadana waxaad ogaataa in dadkii maal qabeenka ahaa hadana xoolaha ku jira gacanta danyarta ay dib uga soo ceshanayaan kuwii saboolka ahaa waxa soo xoolaha loo gacan galiyeen ay bari ka maalin ku noqon doonaan hadana waxyaabaha arinta lagu tijaabiyana waxa kamid ah dadka hadda jeer caalamka lootariyada ku guuleysay yani waqtiga nasiibka waxa laga yaabaa inuu 3 milyan ama 2 milyan oo dollar gacanta ku dhigay suuqana shil haysan dadkaas 95% waxay u badan yihiin in hadana sanado kooban gudahood waxa soo lacag ay ku waayaan buugaagta dhiganayaasha aadka kaaga caawinaya in hab fikirkaagu isbedelana waxa ka kawa buuga la dhaxlo The Rich Dad and the Poor Dad ee uu qoray Robert Kiyosaki buugaasi gabi ahaanba waxa uu daaran yahay hab fikirka iyo mindsetka dadka in uu bedelo una bedelo hab fikir qof maal qabeen ah faqriga iyo wax la'aantuna waa dhibaato aad u weyn sida daraadeed buu nabigeena calayhi salaatu wasalaam mar walba Allah subhanahu wa ta'ala ka magan gali jiray inuu ka dhigo sabool faqiir oo aan waxba haysan ilaahina waxa uu ku bari jiray Allahumma inni أعوذ بك من الكفر والفقر سيقول حبيبك عليه الصلاة والسلام كل ما نهي دعاء ستاسا كفر وهنا الله سبحانه وتعالى لقى قاله يا فقير النماذا وحانو ينتسي دبتا أي الله فقر غير وحلانته
muuqaalkeedna intaas ayaa ku eegay fadlan hadda ku cusubtay kanaalka ku soo bir adigoo subscribe taabanay gambaleelkan furasuu ku soo gaaro muuqaalada markanu soo gelina videogana kana ahna like gare huna sii share gare asxaabta iyo helka kuna sii share gare WhatsApp iyo Facebook si dadka oo dhan uga wada faa'iideystaan muuqaalka xigeentan suguman doono nabadey wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh